السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتي qaaliga dhinaca wadana la socota meel kasta joogtiin kusoo dhawaada channelkeeni xarunta cuntada caafimaadka walaashin shukri aadan buuli asxaabta qiimaha badan soo dhawaada maanta waxay naga codsanayaa intaan usii guda gelin topigeena inaad subscribe sameysid haddaa nagu cusub tahay like gareysiin share gareysiin commentka hoos nagu dhaaftiin wixii fikrad ah iniga waxaas oo dhan waa free lacag ma iniga rabto intaas laga kaftan maanta topic aad iyo aad u muhiim ah halkan ku haya oo su'aalo badan soo laabteen su-aasha waxaa waaye topiga waxaa waaye ilmaha yaryar oo dhan waxyaalaha u keena caaqibadaha u keena inay caloosha istaagto maxaa ka mid ah ilmihii ayaa laba ah mid waa 0 ilaa 6 bilood muu gaarin ka 6 bilood ilaa sanadka saasay u kala yihiin marka kulli horta ta ugu horeysa ilmaha waxaa u keenaa inuu asmaam caaqibada ugu koreysa u keenta ilmaha inuu musqusha ku adkaato ama saxarada ku adkaato waxaa weeye cunugaas inuu cunin ama uu qaadan jirkiisa gelin inaa fiber wax la dhaho fiberka waxaa weeye cuntooyinka caloosha jilciya ee caloosha u fiican laakiin kaas waa kii cuntada gaari weeye haddii cunto ka baran ilmahayga uu cunto gaarin kaas cunugaas kale waxaa waaye waa cunug oo naaska si fiican u cabin ama naas inaaf helin hadduu weli gaarin 6 bilood ayaan ka hadlayaa haddii cunugaas ilmaha kale oo dhan haddana kulli waxay kale ka mid tahay midda labaad caaqibada kale u keentay inay saxarada istaagto waxaa waaye asxaabta qaaliga inuu ilmahaas helin inaaf fluids ha laga wadaa biyo ama cabitaan ama waxay ahaataba oo jirka inuu jirkiisa ilmigaas uu lahayn wax oo qoyaan badan biyo badan ama caano badan ama liin ama waxa biyo dhan ay ka koobantay fluids ilmahaas helin waxyaalaha kale oo ilmaha u keena la dhahay inuu ilmahaas caloosha istaagto ama saxarada ku adkaato waxa kamid ayaa la dhahay inuu ilmaha yar 6 bilood gaarin inay laga badbedelo caanaha uu cabo formilaha kaba soo qaad ilmo naaskiin hooyadii way siisaa caanaha formulahana way ugu dartaa laakiin maanta formulahan ayay siinaysaa beri formula kale ayay siinaysaa taasna way keentaa calool adeeg badan ayay keentaa cunuga hadhow uu qasmayaa uu wareerayaa jirkiisa ayaa wareeraya caloosha ayaa constipation ay ku dhacayso way istaagaysaa haddii cunuga yariiska waxaa la dhahay uu wax ku furan yahay stress mise marmar xitaa xanuun ayaa jirkiisa oo kusoo jiro cunuga u keeni kara ama reerkooda guureen environmentii meeshii iyaga ka saayin laga qaaday meel kale la geeyey isagana way keentaa haddii xitaa ilmahaas u travel gareenayo ilmo uu yahay safar meel kale la geenayo uu yahay isagana way u keentaa caaqibadaas oo ah inay cunuga xaarka ku dhigo ama musqusha ku adkaato uu hadhowna meeshaas uu tusaayo inay cunugii maxaa la dhahaa dhibaatooyin badan kasoo gaarso waxyaalaha kale u keena waxaa waaye ilmaha yariska inuu caloosha xaarka ku istaago ama saxarada ku adkaato marka ilmaha oo waxaa la dhahay la train gareenayo oo bootiga la saarayo cunuga marmarka qaarkiis xaarka ayuu isku dhejinaya uu ka cabsoonaya cabsi ayuu halkaas muujinaya hadhowna calooshii istaag ayay bilaabaysaa waqtiga loogu talagalay duma musqusha markuu rabo markasta uu dib u dhigo calool istaag ayaa meeshasana ka dhacato waxaa kale u keenaa la dhahay ilmaha yariiska ina waxaa la dhahay oo hadda kuwa waxaan ka hadlaynaa waaweyn ee weliga ay cuntada cuneen inuu cunto fiican oo jirkiisa caloosha u bixisa la siinin cunto cad bas la siiyo sida canjeera cad mise rooti cad qaaliga hadii ilmahaas cunto fiican oo la siinin cunto caloosha u bixisa sida mushaarida white meal oatmealka babaay timirta liinta waxaas la siin waayo ilmaha cuntooyinkaas ayaa la high fiber hadaa maqashiin waa cuntooyinka caloosha bixiya wax kale ma dad badan ayaa isu weydiin high fiber maxaa laga wadaa waxaas ayaa laga wadaa high fiber meesha ku maqashid waa cuntooyinka oo caloosha bixiya sida musakada ama galeyda ku badantay cunto dhan oo ama fruit ahaato ama ha ahaato cuntooyinka caloosha u fiican ee caloosha bixiya ayaan ka wadaa walaalayaal macaan marka caaqibadahaas ayaa u keenaa ilmaha yariiska inuu caloosha ku dhigo marmarka qaarkiis nuunaha yariiska ah ee 6 bilood gaarin hadduu caloosha ka istaago waxyaalaha kale u keena waxaa waaye hadduu gaas calooshiisa leeyahay caloosha gaas ku tandi caloosha xanuunayso isagana u keenaysaa inuu caloosha istaagto asxaabta qaaliga waxaa kaloo jiro ilmaha yar oo u keena inuu caloosha istaagto waxaa ka mid ah waxyaalo badan sida hore uga soo hadalnay inuu ilmaha maxaa la dhahaa oo masaajin helin oo loo daliigin hadda ilmahaas ilmo loo daliigan ahayn oo ma arkino markuu caanaha la siiyo dhabarka asaarin ninkuu 6 bilood ka yaryahay isagana way istaagsa even kuwa waaweyn ee gaareen cuntada ilmahaga markay cunaan ha socdaan ha cararaan sida ha ciyaaraan exercise u tahay laakiin hadda cunuga meel fadhiyo bas uu yahay sida ilmahan waa bil aadan si dadka waaweyn oo kale waa isagana waxa la socotaa ilmahaas
calool istaag ayaa ku dhacayo. haddii ilmaha uu yahay ilmaha yar aan usoo laabto kii yaraa ay cuntada gaarin uu naas caano fiican u helin uu caanaha formilaha bas uu cabo oo caanahaas adagiin zaaid loogu adkeeyo calool istaag ayaa ku dhacayo. badanaa ilmaha caanaha formilaha kaligood cana calool istaag ayaa ku dhaca. waxaan ku dhihi lahaa hooyada marka calooshaas cunaha ka istaago caanaha qafiif uga dhig hadduu naas cabin. hadduu naas iyo caano isku siinaysidna naaska u badi habeenkii naaska sii caanahana subaxda sii. habeenkii naaska markaad siisid waxay ka caawinayaan calooshii wuxuu ka caawinayaa habeenka naaska aad siinaysid inay caloosha istaagsanin ee caloosha u jilcido oo cunuga musqusha toos u galo dhibaato iyo xanuun u keenin. calool istaag ayay ka caawinaysaa. waxyaalaha kale caaqibadaha kale oo keena waxa weeye lahay haddii family history waxa la jiro haddii familka aabaha ama hooyada uu jiro ay yihiin dad calool taagan ilmahaasna caloosha way istaagaysaa. waa genetic naturally uu ku dhacaa. haddii waxaa la dhahay ilmahaas daawooyin la siiyo daawooyinka qaarkood waxay keenaan inuu ilmaha caloosha istaago. haddii aragtid daawooyinka ilmahaaga aad siinaysid inuu daawooyinkaas oo ku aragtay marka daawooyinka waqtigaas aad siinaysid cunugaaga calool istaag ogow daawadaas ayaa u keentay calool istaaga. isbitaalka ku dhakhtarka ku laabo oo waxaa ku dhahdaa daawadan markaan aan siinay cunuga waqtigaas calool istaag ayaan ku arkay iga bedel waa laga bedelayaa wax dhib leh ma jiro. soo marka asxaabta qaaliga caanaha xitaa oo maxaa la dhahaa oo cow milkska ilmaha way u keenaan calool istaaga la socda caanaha oo lo'da ah sida formulayaasha sida kuwa kale caadi ah. haddii aragtid cunugaaga oo calool taagan isagana caanaha ka qafiifiyaan ku dhihi lahaa. diet kale bedelayo dietka waa cuntooyinka maanta cunuga wad bedbedelaysa cunto tahay qof ilmahaaga markuu yar yahayna hore aan kusoo hadlay caanaha ka bedbedeshid calool istaag keenaan. markuu weynaadana hadda dietka cunug waxaa siin jirin maahan mar kale markaas waa shid isagana calool istaag ayay leedahay. asxaabta la socda hadda kan waa part 1 waa waxyaalaha keena caaqibadaha keena in caloosha ilmaha yariska istaagto waaye. part 2 ayaan keeni doonaa daawooyinka iyo cuntooyinka ugu fiican iyo sida ugu roon ilmaha caloosha markay taagan yihiin loo habeen karo isagoo natural way ah. hadda waxa ka faa'iideen sheegareeya subscribe sameeyo dadka la sheegareey dad badan su'aashan zaid u soo laalaabatay. soo marka dad ka faa'iideen dadka la sheegareeya si uga faa'iidaan meesha nagala socotiin waa channelkeeni xarunta cuntada caafimaadka waana nii soo daynaa walaashin shukri aadan bule. soo asxaabta bakhiilin ha noqonina hadda waxa qabtiin comment-ka hoos ku daaya dadkana la sheegareeya intaas ayaan u sii guuda baxaya. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.